السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa kanaalkii Dahan Academy oo maanta idiin soo gudbin doono maadada afka Soomaaliga gaar ahaan fasalka Form 4. hore waxaan ugu soo jirnay cutubkeeni koobaad qoraal sharaxeed anigoo adeegsanaya waayo aragnimada aan u leeyahay ereyada afka Soomaaliga waxa aan isku aadinayaa ereyga lidkiisa isla kolkaasna waxa aan raadinayaa erey la macno ah. ereyga koobaad fanasho lidkiisu waa degasho waxa la macno ah meel fulid ama meel korid. ereyga labaad buubaal lidkiisu waa hayin waxa la macno ah rati aan la carbin oo radiid ah. ereyga saddexaad horweyn lidkiisu waa irmaan waxa la macnaha geel guran ama geel badan. ereyga afraad galoof waxa la macno ah aan dhaho ereyga galoof lidkiisu waa xaas waxa la macno ah ishkin dhadig ah oo aan irmaanin. ereyga shanaad waa har lidkiisu waa ciriid waxa la macno ah wax ifqabtay hooska uu bixiyo. ereyga lixaad kul lidkiisu waa qabow waxa la macno ah kuleel ama kaliil. ereyga toddobaad waa lax lidkiisu waa wan waxa la macno ah idaha dhadiga ah. ereyga sideedaad caro lidkiisu waa farxad waxa la macno ah xanaaq. ereyga sagaalaad gaari lidkiisu waa baali waxa la macno ah haweeney maamulkeeda iyo jirkeeda ilaalisa. ereyga tobnaad dhurow lidkiisu waa dhimo waxa la macno ah liibaan qayr ama taran. waa anigoo ah Ustaad Cabdiraxmaan Cumar Xasan waxaan idin leeyahay kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada kanaalkii Dahan Academy.